Dowladdii Fatimiyyiintu waa mid ka mid ah khilaafaadkii Islaamka ee ka dhashay farac Shiica oo gaar ah, laguna magacaabo Ismaaciiliya, waxayna ka talisay qaybo badan oo ka mid ah Waqooyiga Afrika, Masar iyo Bariga Dhexe intii u dhaxaysay 909 ilaa 1071 ee miilaadiga. Haddaba, magaca Fatimiyyiintu halkuu ka soo jeedaa? Waxaa loo magacaabay Fatimiyyiintu iyagoo sheegta in ay farac toos ah ka yihiin Faatimo bintu Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo saygeedii Cali ibn Abi Taalib. Tani waxay siisay sharaf diimeed oo xooggan gaar ahaan Shiicada. Dowladdii Fatimiyyiintu waxaa la aasaasay sanadii 909 ee miilaadiga. Waxaa aasaasay ninkii lagu magacaabi jiray Cubaydillah al-Mahdi Billah, isagoo sheegtay in uu yahay imaamka saxda ah ee muslimiinta Shiicada gaar ahaan Ismaaciiliya. Haddaba, dowladdii Fatimiyyiintu marka hore caasimadeedu waxay ahayd Tunuusiya, dabadeed waxay u guureen Qaahira. Masar ayay dhisteen sanadii 969 Ciise dabadii. Magaalada Qaahira ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dowladda Fatimiyyiinta. Dowladdani waxay xukumaysay dhulal fara badan oo ay ka mid yihiin Tunuusiya, Aljeeriya, Masar, Suudaan, Siiriya, xitaa qaybo ka mid ah Xijaaz iyo Maka iyo Madiina xitaa mar unbay xukumeen. Waxaa jira xilli ay gaareen awood buuxda oo ay tartan la galeen khilaafada Cabbaasiyiinta ee Baghdaad. Qarnigii 12aad, dowladdani waxay gashay daciifnimo siyaasadeed iyo dhaqaale. Waxaa sidoo kale soo baxay dagaallo gudaha ah iyo kacdoonno Sunniyiin ah. Sanadkii 1171 ee miilaadiga, dowladdii Fatimiyyiintu waxay si rasmi ah u dhamaysay ninkii lagu magacaabi jiray Salaaxudiin al-Ayyuubi oo ahaa Sunni, wuxuuna Masar ku biiriyay khilaafadii Cabbaasiyiinta. Kadib, Al-Azhar ayaa noqotay xarun cilmiga Islaamka lagu barto ilaa iyo maanta, laakiin inkastoo ay hadda tahay xarun Sunni ah. Haddaba, qodob aad muhiim u ah, Fatimiyyiintu waxay isticmaali jireen munaasabadda Mawlidka si ay ugu muujiyaan jacaylka ay u qabaan Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, iyo si ay taageero uga helaan shacabka. Laakiin markii dambe, Mawlidku waxaa qaatay boqortooyooyin kale sida Cabbaasiyiinta iyo Mamluukiyiinta, laakiin waxay u qaateen qaab diimeed iyo bulsho ahaan loo dabaaldego. Mawlidka si siyaasadeed iyo si diimeedba waxaa markii hore keenay Fatimiyyiinta ee Shiicada ahaa, laakiin waxaa markii dambe qaatay dhammaan muslimiinta oo dhan, Shiico iyo Sunniba, iyo inkastoo ay jiraan culimo mowqifyo kala duwan qabta. Dowladda Fatimiyyiintu waxay la kulmeen dagaallo badan oo ay la galeen Cabbaasiyiinta iyo Umayyadeed. Ugu dambeyntii, awooddoodu waxay dhammaatay sanadkii 1171 ee miilaadiga markii Salaaxudiin al-Ayyuubi uu xukunka la wareegay.